عقاشة نجربوتك علماء هوانك دليرada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdikariin maxamud axmed waxaan maanta halkan u taaganahay in ujeedada aan halkan u imaan idiin sheego taasoo ah inaan maanta dadkii matalaadooda aan matalaada ka doonayay aan halkan cod ku weydiisto waxaa sharaf weyn aan maanta inaan hortiina imaado aniga oo doonaya kursiga xildhibaannimada ee beelweynta Axmed Garaad oo deegaankan laga doorto runtii aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa maanta intan oo cuqaashi deegaanka ah deegaanka Buuhoodle dhalinyaradii haweenkii iyo nin garboodkii culimadii dhammaantood saxaafadii inaan halkan maanta aan u taaganahay inaan idinka codsado kursigaas inaad maanta leeygu heeliyo haddii aan ku hormaro sababta kursigan maanta aan u damciyay ama aan u danaynayo waxa weeye aniga oo arkay maanta kursigan inay tahay xilligii ku haboonayd ee aan isu taagi lahaa maadaama aan leeyahay aqoonteedii kartideedii iyo matalaadiisa dhabta ah ee kursigu maanta u baahan yahay mudanayaal iyo marwooyin aniga oo ku faraxsan maanta inaan halka soo istaago isla markaana idin weydiisto codka kursiga ujeedada aan kursigan u soo doontay ma aha in aan shaqo kursigan magac ka helo ujeedadaydu ma aha inaan hanti ka sameeyo anigu waan shaqeeyaa waxa la yiraahdo waana barwaaqaysanahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ii nimceeyay laakiin xilka dadkayga iyo deegaankayga iga saaran baa maanta igu kaliftay in aan maanta kursigan soo taago كعبدكرين هان هدي أن إساسي عديو waxaan ahay nin bartay sharciyada sida halkan balaga sheegay waqti badan ku soo shaqeynayay qofka kursigan doonayaana waa qof la rabo sharciga inuu ku shaqeeyo oo waxa la yiraahdo waa xildhibaan baarlamaan shaqadiisa waad garanaysaan waxa ay tahay waa qof shuruucda ku shaqeynaya isla markaana kula xisaabtamaya xukuumadda markaas meesha ka jirta sidii nidaamka iyo matalaada dhabta ah ee deegaanka uu matalayo ay uga fulin lahayd wixii xuquuq ay ugu lahaayeen midda labaad oo aan maanta halkan u taaganay waxa weeye anigu ma ahay nin qurba joog ah oo dibadda ka yimid ee waxaan ahay nin deegaankan ku dhashay degan caruurtiisa iyo reerkiisu joogaan baahida deegaanku dareemaya idin la dareemaya sababta ugu weyn ee maanta kursigan aan u doonayna waxa weeye baahidaas anigu aan dareemayo maadaama familygaygu ay halkan degan yihiin in aan la dareemo bulshadayda kalena baahidaas oo kursigaas maanta aan noqdo hormuud dadka iyo deegaanka kursigaas ku matala kuna anfaca إله سبحانه وتعالى وحليه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسميهين كوا قرانيا aqoonta u leh iyo kuwa aan u lahayn sababta ugu weyn oo maanta aan arinta u cuskanayaana waxa weeye CV-gayga ka muuqata runtii khibrad shaqo oo badan oo waqti badan ah baan wataa waxaan jeclahay maanta kursigaas waxa la yiraahdaa inaan waqtigiisii ugu mudnaa ee aan istaagi lahaay maanta tahay sidaas daraadeed mar labaad iyo mar saddexaadba dadka kursigan aan ku matali doono ama oo kursigani beelweynta Axmed Garaad oo kursigooda yahay isagoo deegaanka Buuhoodle oo dhan kursigoodii uu yahay waxaan aad iyo aad
ugu rajo weynahay maanta kursigaasi inay garan doonaan cidda ku habboon aqoonteedana leh lafihiisa cadcad iyo waxa uu galay iyo wuxuu gudan ay garanayaan intaas haddii aan kaga gudbo waxqabadyada muuqda ee deegaanka aan ka qabtay muddadii aan shaqada ku jiray ama deegaankan Buuhoodle waxa la yiraahdo in badan oo idinka midna ay ka warqabto waxa kamid ah in 2013 aan deegaankan ka sameeyay dalad dhalinyaro oo isku xidha gobolka Cayn oo dhan min xaradan ilaa Balacad inta u dhaxaysa ilaa Ceegaag Hurfadhi daladaas oo ururada dhalinyaradu ay ku midaysan yihiin waxqabad aad u badanna muujisay muddadii ay jirtay run ahaantii waxa la yiraahdo dhalinyaradu waagi hore may lahayn unity may lahayn midnimana ma ay lahayn waa midaynay deegaanka inta leeg deegaan aan urur dhalinyaro ka jirin maanta uu ku yar yahay runtii waxyaalaha ay qabatay ee aadka u muuqdeen waxa kamid ahaa xilligii shuban biyoodka deegaankeenna xanuunku ku habsaday waxaan soo gaarsiinay deegaanka waxa allaale wixii karaanka iyaga aanu ka soo karinay daladaha gobolada kale waxyaalaha kale ee deegaankan aan ka Cabdikariin ahaan u soo hindisay muddadii aan xagga joogay ee maanta muuqda idinkuna aad markaati ka tihiin waxa kamid ah xarunta garsoor dhaqameedka maanta oo cuqaasheenu ay dadka ku kala saarto culimadeena dadka ku kala xukunto runtii muddo 6 sano ka badan baan daba socday deegaankeenu inuu yeesho xarun garsoor dhaqameed oo ay naga caawinayso hay'adda IDLO iyadoo inoo soo maraysa wasaaradda cadaaladda maanta way inoo shaqaysaa waa la wada yaqaanaa meeshaasi maskaxdii ka dambeysay ee soo hindistay aniga ahayd waxa kale oo jira muddadii deegaanka aan ka u shaqaynay ama u qareemayay waxyaalaha aan qabtay waxa kamid ahaa inaan dhisnay iskuul uu leeyahay midowga aqoon-yahanka waa bari primary school baa leeyahay 140 arday oo dan yar ah iyo agoona baa ka faa'iideysata gudoomiyaha golaha boardkan ka ahay gudoomiyihii golaha fulintuna waa fadhiyaa ardaydaas 140 ah waxaan wax kaga barnaa jeebkayagaan wax kaga barnaa contribution aanu ka aruurinay 200 oo aqoon-yahanka gobolka aanu anagu isu keenay baan wax ku barnaa taasina waxa weeye waa waxyaalaha maanta aan umada u sheegayaan midda saddexaad oo deegaanka ka muuqata maantana inoo shaqaysa waxa la waqti badan aan u qareemay waxa weeye xarunta dhalinyarada ee farsamada gacanta Cayn Youth Center way inoo furan tahay 300 arday in ku dhawaa maanta inoo dhigata hay'adda UNFPA baa inaga caawinaysa iyadoo inoo soo marsay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aan maanta ka shaqeeyo run ahaantii xaruntaasi isbedel weyn bay deegaanka ku keentay waana xarun dhalinyaro waqti badan aan ku taamaynay in ka badan 10 qof baa shaqaale ka ah oo mushaar ka qaata idinkuna caruurtiina iyo dhalinyaradiinuna way ka faa'iideystaan iyadana taasna maanta waa hawl aan waqti badan galiyay oo maanta deegaankeena ka muuqata intaas waxa ii dheer waxaan waqti badan u qareemay gobolkan Cayn saldhigiisa dhexe ee halkan inoogu yaala inaan u helno dhismo muddo badan aan u daba socday hay'adaha iyo dadka saldhigyada dhisa runtii kuma aanan guuleysan laakiin waxaan ku guuleysanay naqshada saldhigu u dhismi doono mustaqbalka annagoo waliba ku bixinay qarash shakhsiyan qarash ku bixiyay inaan naqshadii gacanta ka saaray gudoomiyihii hore ee gobolka Cayn Cabdirasaaq Xaaji Xasan Xunjub oo maanta gacanta ku haya naqshadii saldhiga intaas oo dhani waxa la yiraahdo waxaan qabanayay aniga aan wax xil aan u hayn deegaanka laakiin si mutadawacnimo ah baan ugu shaqaynayay deegaankayga anigoo ka damqanaya markasta waayo waxa maanta deegaankan Buuhoodle la soo darsaa wax aniga ila soo darsay intaas hadii aan ku dhaafo wax qabadkii waxyaabaha aan mudnaanta siin doono hadii kursigan ilaahay calaf iigu daro idinkuna aad ii ogolaataan kursigaas oo aad igu garab gashaan ugu horeyn waxaan ballan qaadayaa
إن شاء الله هدي إلى هيد مينان حكت ديجان كان نجيو حفيز كستا أو دولديد وصيد بهنا أنو قارسيو باهيها ديجان كان نكتشره سيدا موقتا ديجان كان باهيه سا حفيزية الدولة مقدشة واتقنا كرسينا دولة فدرالوي باهيها ديجان كان مثلاً وحلا يراهدو ما قارسيسنا دولة حفيزية بدلنا وربا كما هيان ديجان كان ناعي waxaan golaha fulinta kula xisaabtami doonaa kuna dabageli doonaa inay deegaankan waxqabad ka sameeyaan baahiyaha asaasiga ah 20kii sano ee dawladnimada Soomaaliya dib loo soo aasaasay aan wax laga qabtay aysan jirin insha Allah ta'ala hadii ilaahay waxaan si furan insha Allah uga shaqeyn doonaa deegaankeena iyo dadkeena mana noqon doono in ablaabadiisu xiran yihiin oo kursiga maalinta uu ku fadhiistay idinku dambeeya insha Allah waxaan ballan qaadayaa hadii ilaahay idmo oo ilaahay ila garab galo inaan noqon doono xildhibaanka kaliya ee deegaanka degan xilliyada shaqada ma ahaan xilliyada kalena deegaanka dib ugu soo laabta ugu dambeyntii maanta waxayna hor taala fursad aan bila kadib in hor ooli doonin ama bila kadib aynan haysan doonin nabadoonnada oo si gooni ah ula hadlayo oo ah dadka soo xulaya ergada maanta dooranaysa xildhibaanka waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta lagaga cabsado oo kursigaas maanta qofka ergeyga ah ee maanta la xulaya oo qofka madaxweynaha dalka dooran doona xildhibaanka waa jaranjaradii la sii mareeyay dadkeen deegaankeena inagu matali kara oo masiirkeena ka fakaraya insha Allah ta'ala ergada inaad ka dhigtaan oo ergadaasi ay noqoto ergay deegaankeena u danaynaysa oo wax la yiraahdo wixii kalaba way dhamaadaane ta deegaanka hadhaysay tan deegaanka maanta tixgelinta koowaad la siiyo ergadana iyagana waxaan dhihi lahaa insha Allah ninkii ergaya ee maanta fadhiya halkan ama waxa la ergeynimada la siin doono xilka ha ogaado halkii ergaba inuu matalayo 10,000 oo qof dad ka badan inuu xilkiisa tuurta ku qaadanayo barina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu weydiinayo ugu dambeyntii mar labaad iyo mar saddexaad baan anigoo idin mahad celinaya khudbadayda intaas aan ku soo koobay